wardegdega ciidamadii ugu badnaa ee ka soo goostay dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka aadan Madoobe ayaa ku biiray garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen kuwaas oo gaaray duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay gaar ahaan fariisimaha ay ku sugan yihiin wasiirka amniga garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo Ogaas Xasan Afhayeenka madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaan kula wadaagi doonaa tirada ciidamadaasi iyo sidoo kale wasiirka amniga garabka Laftagareen oo ku soo dhaweeyay saldhigyada ay ku leeyihiin duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ciidamada ka soo goostay dhinaca dowladda federaalka iyo maamulka aadan Madoobe soo dhaw muuqaalka like sar aragtidaada qaybta faalada ee comment-iga ku dhiibo hagaaga in ka badan 100 askari oo ka soo goostay dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka aadan Madoobe ayaa ku biiray garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen kuwaas oo lagu soo dhaweeyay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyagoona sheegay ciidankan inay diyaar u yihiin ka qaybgalka halganka dib loogu xoreynayo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya duleedka Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay wasiirka amniga garabka Cabdicasiis Laftagareen isaga oo arrimahaasi iyo soo dhaweyntooda ka hadlayana hadaladiisii waxaa kamid ahaa wasiirka amniga sida tan geekaaseen ka dhawaayaan taliska ku meel gaarka ee ciidanka dowladda Koonfur Galbeed ee daraawiishta oo ka taala duleedka Baydhabo yaaseen ka dhawaayaan oo safar dheer ku qoytaan wala weyn oo gobolka Shabeellada Hoose iyo jidkiisan hamarteen iyo walaa'isan u qoytaan iyo ujeedka guud iyo xaalado hata unanahay iyo in isan ha gortaan in ku qayb qaadataan howlgallada socda iyo eedasin ku mahnagaan hadhawaada inta wali ka sugan ciidankiikin inta wali ka sugan mas'uuliyiintiitin magaalada Baydhabo hay afjaaw siisinba araga haytan magaalada Baydhabo hay walaha gudaasha ku jara walisan walasan ku sheegawma wali roogana dhalinyaro dowladda federaalka shaanti oo runtii magaca salbilaartu una biini oo deegaankan in dowladnimadiisa la kabaabiyo sharci shay la kabaabiyo in shay la kabaabiyo leenshaan iyo dad kale yoona reer Koonfur Galbeed laakiin gorodaan in walaa yaro markaas ay la siyaa dhaqaalaha ay la fiiriyaan deegaan aan fiirina dadna aan fiirina dowladna aan fiirina yoona ka shaqeeya hay'ad roogan guud ahaan wali hasin ka dhawaayaan ciidan weynihii king ingisan hakabiirtan qeyb kunaga tan howlgallada socdo dhiig cusub oo hanay beeri oo ciidanka hakabiirina atiin wali siin ku rajeeyna firfircooni wali siin ku rajeeyna dadaal dheeri wali siin ku rajeeyna in howlgallada socdo guul fara badan isan ku sheena doontaan siin ku rajeeyaan ogna taariikh gaaraya in la taana shakhsiyan degmada wala weyn iyo ciidan sheekh taariikh gaaraya in leeyin ciidan markii hore degmada wala weyn iyo baraawe wali hayna ciidamadii deegaanadaas ku howlgalay ciidama geesiyaal oo runtii shaqadii landarisay adag kan ku bahan howlgalladii iyo meelo ka soo biyaanayeen howlgallada dowladda Koonfur Galbeed ee danka faraxsanta shacabka reer Koonfur Galbeed ee danka faraxsanyi howlgalladii isugu hayeen waajib shaha gudateen walsan kuma hanaga kan hadasan suga hayoon kiisan shalay dhaarateen oo qoran qaadan oo ciidan nagateen inaysan dalkiin dadkiin diintan isan dafacdaan hayo dhawaada qabiil gaar ah oo duulan ka ii jaro deegaan gaar ah oo duulan ka ii jaro deegaankii kan dowladnimadii tan oo la ka duuli ya dafacana dad badan wali mararka qaar aragaasana in howlgalkan socdo ama la qabiilayo ama noocyo kala baran dambiyo ama waxyaabo kale oo usan lahayna la ka sheego laakiin lan kasta oo digil marfle ama reer Koonfur Galbeed ogi wala xaqiiqda inta ku jaro dowladan oo dhisan ya wali ka duulay dowladda Koonfur Galbeed oo dhisnaaytay magaaladan iyo magaalooyinka kala ku taliyaasay wali ka duulay dowladda federaalka wal ogi damoolahan ka duulina badanyiin wal badan oo reer Koonfur Galbeedna ku qarsanayn hadii yalahan ka duul deegaankan horumar ku socdo nabada taali ciidan shay dhismaay dowladnimadiisa horan socotay intii oo dhan yalla araga waaye gaar ahaan gobolka isan ku kooytan Shabeellada Hoose oo isan waqti badan galiidan amni shay ku shaqeeysan isan gobtiin gobolka isugu hay oo dhan ya resources shay in la qaado dowladda federaalka qaadatay waxyaabo Baydhabo la ka duuli kuma dadta